الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، آيات أفري لباتبين كبلا بينا وسورة الأنفال. قال الله تعالى: إلهي باوحل يا أيها الذين آمنوا دتك إلهي رميو استجيبوا لله وللرسول. إلهي الرسول كيسة أقبل وراع إذا دعاكم مركو النبي محمد دين كيرو لما يحييكم محيد النولين. واعلموا أغاد أن الله إلهي يحول وحوكك لدحجر بين المرء وقلبي قفك إي قلب جيس، وأنه أرنك وحوي إليه تحشرون. إلهي حقي سال يدين صورنا يا آخر إلهي بهور منيس. واتقوا فتنة بلايا إسك إلالية لا تصيبن أن كل عين الذين ظلموا منكم كوي قرد هذا السمية إذن كمدها خاصة يقونية وإذن وذقاري. واعلموا وقال أن الله شديد العقاب، إن إلهي عقاب كيسو درية. واذكروا حصى إذ أنتم قليل واختقي آية رايدين مكتشوكتين مستضعفون في الأرض دولك أيال إذن كهر وسنة يا أمال إذن كنت مرد الرئيساني تخافون وحكور ورسنيدان وكعب سنيسين أن يتخطفكم الناس. قالوا إذن كلا الأفصدان والله إذن كلا قوسته فآواكم إذن سودوي وأيدكم بالنسر قرقار كيسو إذن كحوشي ورزقكم من الطيبات وحو إذن كأرساق حلال بدنا وناكسا لعلكم تشكرون. سيا إلهي يقوم هذا نغضان. يا أيها الذين آمنوا دتك إلهي رمي ولا تخونوا الله والرسول. ربي يا رسولها خياميننا وتخونوا أماناتكم ولا تخونوا أماناتكم. أمانوينك إذن لنا خياميننا وأنتم تعلمون إذن كوغرانيا. واعلموا أغادا ولا إذن براروتيه أنما أموالكم وأولادكم دتكين إيا الدنيا دي أما أوبتكين إيا أدونكين فتنة ووحلا إذن كو امتحانيا وأن الله عنده إلهي أكتي سوحا هذا أجر عظيم أبا المرين وينها إلا وين. وباقي إلهي وشيدين يا أولياديس أصحاب تهرمود كاويهين رضوان الله عليهم. إلهي وياري أصحاب تايا مؤمنين تا ميل ولا يتشوغان با أبركوسية وحوية وحلقوها رمبرا لقوها ضمال لقو الليبانا. باق إلهي الرسول كل أقبله باقي إلهي يربدي سوا كتاب من القرآن كا نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركو إفك كتجي أحاديث الصحيح عيد بينه هينا مركا إن لا أجيبه رمرك ينرش دتك كتيره دتكو إن إلهي حقي سإسكا أجان أي إلهي وكبر أرتيا وحول إلهي قلبي نيو وح وكلا دحجرا قفك يا قلبي جيس أي إلهي وكلا دحجرا إلهي حقي سإسكاك waxaad ku xisaabtantaa inuu ilaahay ku eegayo aakhirana dambayso markaasaad miirsan doontaa markaad ilaahayna xusuusanteennad ilowsanayn aakhirana aanad ilowsanayn. wuxuu ilaahayna faray shayga dembiga la idhaa inaynu iska dayno dadkana u diidno, laakiin aynaan ku xisaabtamin dembiga adigu haddaanad samaynaynin dadka samaynaya maxaa kaa galay waxay doonayaan ha sameeyaan saa ha u xisaabtamin. doonni baa la wada saaran yahayoo dadka xumaanta samaynaya haddii loo diidi waayo way kula degi. marka iska ilaaliya fitno aan ku gooni noqonaynin kuwii sameeyo qura ciqaabka ilaahay uu daran yahay uu idin jeedin. dib wuxuu ilaahay u xusuusiyay nabi maxamed iyo saxaabadii waqti ay soo dhaafeen oo Maka joogeen oo awoodooda dhaqaale iyo awoodooda military iyo awoodooda bashar ahaan ama bani aadam intuba ay yaraayeen oo maalinba qof la dilay maalinba qof la dhaawacay maalinba qof la ihaanaysanay iyo ayaamahan bedar ka dambeeya qiimaha badan ee gaalkii ay ku dhacday quraanjay ku quuso candhuuftiisa dib u liqay labadaas ilaahay isu barbar dhigay markaasuu leeyahay ayaamaha bal dib u xusuusta intaasuu ilaahay idin sameeyayo mustadcafiin baa idin kuwa itaal daran dadkuna way idin kala dhufsan gaareen. marka ta'yiid buu ilaahay idin siiyay uu idin xoojiyay oo wuxuu idin keenay madiinata rasuul sallallahu alayhi wasallam. ansaartii baa idin soo dhaweeyay nasrigiisii buu idin siiyay oo gargaarkii maalinta rag isasheen iyo gaalo gurmadkiisii buu ilaahay idin siiyay cir iyo dhulba. arsaaqad wanaagsanna uu idin siiyay oo ay ka mid tahay qaniimadu shaaruba libaax waxaa laga soo qaatay ee gaalka laga soo faramaroojiyay maalintii bedar la isku khilaafay qaybsanayay dayibaadka kuwaasaa ka mid ah. xoolaha ilaahay baa inoo kala sheegay xalaashii iyo xaaraanta. marka xalaashii waxa ka mid ah
iyo masdaru risqigii meelaha fiican sida fiican loo soo qaadanaya xalaasha ahaa gaalka wixii laga soo qaaday waxaynu ku darsanaynaa miisaaniyad soo miisaaniyad la sameeyo maad arag intaasi waa sakada intaasi waa tabaruca intaasi waa qaniimada intaasi waa fay'a waa waxa aad sheegtay qolada miisaaniyadu ay qaar kula yaabayaan warazaqakum min at-tayyibaat tayyibaadka waa lagu daray kuwa waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi hubkayga harkiisa iyo hoostiisa ayaa arsaaqadaydu ku jirtaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka asxaabtu intay sii muudsadaan midhmidh timiraha iyo dhaameelkiiyo sii cunaan ayay dabeetana isdul taagayeen timirta iyo subagga iyo muqmadda sitaan gaaladu ilaahay ugu mahadnaqa ayaa rabbi u leeyahay subxaanahu wa tacaala mar kale uu yeedhay dadka muuminiinta ah rabbi iyo rasuul khiyaameynina aayaddaas waxay ku soo degtay baa la yidhaha asxaabi la odhan jiray abi lubaaba oo inkasta oo dee suuraddu ay soo degtay beder dabadeed waxa dhacda aayadaha qaarkood inay ka sii dambeeyaanoo suuradda aayadaheedu mar qura aanay soo degine ay kala dambeeyaan abi lubaaba sanadkii hijradu ay 5 ahayd ayuu nabigu u diray gaaladii yuhuudii reer bani qurayda oo markaa la doonaya in la weelaro markay ballantii jabiyeen ay gaashaanbuurtii gaalada soo raaceen sanadkii 5aad abi lubaaba is yaqaaneen buu u diray markaasuu yidhi bal soo dhuudhaas ama xogtooda inoo soo ogow xaaladooda halka ay marayso isagana dee way is yaqaaneen jaahiliyadii baa saaxiib lahaa kolkii uu jawigooda eegeegaya ee uu indhaha gelinayay warkana ka soo qaadayay iyaguna mikrofoonka ku dhaweeyeen ila waa la kala macaashayaa ay yidhaahdeen dee waataynu saaxiibka ahayna muxuu saaxiibka inala maagan yahay talow markaasuu sidaa yidhi gacantuunbu sidaa qoorta ku yidhi intaasuunbaa warka ka tegay u ahaa macnaheedu waxa weeye wax kala hafiline gowrac baan idiin sheegay markuu soo noqday buu isogaaday in sirtii ka baxsatay masaajidka tiir ku yaalo isku xidhay markaasaa wuxuu yidhi ilaahay iyo rasuulka mooy cid kale iga furi mayso cid kale intaanay xidhin anaa ogaaday inaan gefay towbadda ilaa la iga aqbalay halkaasaan ku xidhnaanaya intaasoo maalmood wuu xidhnaa wuu cadibnaa waxba muu cunin markii dambaa dabeedna ilaahay soo dejiyey towbaddiisii kolkii towbaddii timina wuxuu yidhi nebigu gacantiisa ha iga furo saasaa laga toobad aqbalay waa sababtii ay ku soo degtay وكذلك قصدي حاطب بن أبي بلتع وركي ورير بكسيي يدنا وين سواء رجني كواس سببه لكن العبرة عامة عبرة دي في رد الدليل كلو إيجا وعام عيد والبو حسيني عيد هذا والبنا ولا عمل فليا إلى هيدا كمؤمنين تابوا يروح أدي ذو كحران تنبي إلهي الرسول كي أمانة ذولا إن خيامة يعني يجوا أقانوا له أمانة ذنا وين شرح دونا إن شاء الله وحو مدة كبرى رتيو كلا الدين تإلهي يضدمدا wanaagsan inaanay u seegin iyagoo ilaashanaya ubadkoodii adduunkooda oo qofku dadku intay u suxul duubayaan adduunka dhaqashadiisa iyo ubadka waxsiintiisa iyo ubadka la xajaclayntiisa inaanay diinta ilaahay tuurin oo dadnimada wanaagsan aanay ka tagin iyaga xaqooda waa la siinaya ehelka laakiin ilaahay loo seegi maayo aakhiro marka arrimaha mid walba in meeshiisa la dhigo ayaa ilaahay uu nagu baraarujinaya subxaanahu wa tacaala uu nafaraya halka markaynu dib ugu noqono amar ilaahay wuxuu inagu siiyay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum yeedhmada ilaahay in la ajiibo la aqbala siday faral u tahay ta nebi maxamedna waa faral far waaweyn buu asxaabta nebigu ugu qoray tusaale waaqiciya buu siiyey asxaabi asxaabta ka midaba maalin isagoo tukanaya salaad sunno ah ayuu nebigu u yeedhay wuxuu ihi hebelow wuxuu isku qanciyey dee gadaal baad nebiga u tegiya salaada iska dhammaystiro markuu salaadii dhammaystirtay buu nebiga u tegey kolkaasuu nebigu yihi maxaad ii ajiibi weyday kolkii aan kuu yeedhay dee salaad baan ku jiray buui markaa nebigu markuu asxaabigu ereygaa yidhi ayaa wuxuu ihi oo sawka ilaahay sidaa yidhi markuu nebigu idiin yeedho aqbala oo u jawaaba maad salaada ka soo baxdid asxaabigii markaasuu qancay oo wuxuu ogaaday in yeedhmada nebiga iyo salaada sunnaha yeedhmada nebigu miisaan badan tahay faralta halkaa waxaa laga faa'iidaysanayaa bay leeyihiin culimadu faralka iyo sunnuhu marka ay kulmaan dee in faralka la qaalib yeelayo oo waalidkii hadduu wax kuu diro oo amar uu ku siiyo hooye iyo aabba adigoo salaad sunna ah ku jira iskaga tagoo soo fuli heblaaye sidaa yeel buu odaygii leeyo amar buu siinayaa shaygii sunnaha ahaana way wadaa sunnaha iska jooji buuri hawshaydii baa la wadaya ninkii odayga ahaa xaaska ay u ahayd ooridu amarkiisa faral ah
sunnahana way ka tegaysa laakiin faralka kale kama tegayso marka arrimuhu way kala miisaan badan waxaynu ka faa'iideysanaynaa aayadda waxa halkan la isugu yeedhaya ee ilaahay uu faray in nabiga lagu ajiibo waa idaa dacaakum limaa yuxyiikum shay idin noolaynaya shaygaasi waa maxay culamada tafsiir qayb ka mid jihaadkay ku fasireen oo waxay leeyihiin jihaadka nolosha dadka ku jira jihaad la'aantana halaagooda ku jira iyo badbaadadooda ila caalamkii tadaafuc baa ka jira waa la isriixriixaya waa la iswadaa la isu turi maayo marka haddaad adigu waxaaga xaraysata alaabtaadii rag waxaad iskaga difaaci lahayd ayaad xaraysatay dee waa lagu xaraysanayaa adiga laftaadana haddaad alaabtaadii xaraysatay aadna waa lagu oodanaya idan marka xayaatada ummaddu waxay ku jirtaa xoogooda xaqa u adeegaya inuu jiro taasi markaa waxay leeyihiin limaa yuxiikum waxa noloshooda ay ku jirtaa waa awoodooda qayb ka mid waxay ku macneeyaan idaa dacaakum markuu nabigu idinku yeedha limaa yuxyiikum waxa idin noolaynaya oo ah maxay qur'aanka kariimka oo kitaabka qur'aankii waa xayaatul quluub waa quluubta shayga nooleeya dadkuna marka ay ku dhaqmaan noloshoodu macaanaato labadaba in lagu fasiraana wax iyo macnaha ka sii ballaadhan diintada iyaduna way noqon karaysa oo kitaabkii iyo jihaadkii waa kitaabun yahdi wa sayfun yaxmi kitaab dadkii hanuuninaya iyo hubkii ilaalinaya kala maarmaya labadaas noloshii baa taa ku jirta labadaba ilaahay uu soo xusay subxaanahu wa tacaala waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbi laba macnay bixinaysa ilaahay wuxuu ku kala dhex jiraa qofkii iyo qalbigiisa waa bilcilmi ogaanshaha iyo xagga cilmigiisa marka la eego marka macnaheedu waxa weeye kol haddii ilaahay uu dee meel walba jidhkaaga og yahay oo qalbigaaga og yahay waxaad ku fikirayso uu og yahay ta islaali cid laga xishooda ilaahay baa u weyn subxaanahu wa tacaala oo markaad fikirayso dadku aanay ku ogeyn inuu ilaahay ku ogyahay ogsoonow raadaarka ilaahay cajiibkii inuu ku hayo ogow ilaa daakhilkaaga isha dabana uunka arkaya baa le uurka dabana ilaahay marka uurkaaga si xun ha u dabin oo saqaloocin si kale haddii loo eego an waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbi ilaahay qalbigiisa iyo qofku ku kala dhex jiraa wuu ku qalloocin karaa marka ilaahay inuu ku toosiyo bari oo xaqa ku toos oo wixii wanaagsan ku dadaal ila rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam alqulubu biyadi illah القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء حديث صحيحة قلوبت إلهي قعنتي زي كترتارين عضارون لقاه مركا دعاء النبي وحي وبضنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مركا هيسدغني هارني أنا وان هنوصني أنا وان وناكسني أنا قا وحبايقا محمع أنا وإنا خير بانا أنا قا أفترسيمة ذا هو إسلام هيسدغني نه إلهي دول بأدون كور هذي كرايه لنا وناكسن كو أتكيسو إلهي بري واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وحين بريس آياتاس أنه لا يكفي الصلاح بل لا بد من الإصلاح إن قما في لك ليين نقطة في سكوناكس لكن وحواجب إن قوا إن وناج نوح هو يكل الدوانتها يقفكو إسكوناكس هذا يسقوا يسد يارين وحوناجيو لبضع الريموت بوا واجب أدوغو إسكوناكس نوع تسالة وناكس النقط dadkana gurmadkooda ka qayb qaado xumaanta diidideeda iyo wanaaga koryeeridiisa iyo qofka mufsidka horjoogsigiisa dal iyo dadba inaad islaaxiso ka qayb qaado doorkaasina waa kii rususha waana ka khasaaraha laga badbaado wal casr inal insaana la fi khusr bani aadam ko dham khasaaro dhexda ugu jira buu lahayn afar arrimood baa laga badbaada khasaaraha maxay yihiin afartu aamanu wa amilu saalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr marka aamanu wa amilu saalihaati waxay sheegaysaa dadkii oo saalixiin oo wanaagsanaaday oo naftoodii ka shaqeeyo hagaajiyay wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr wa gurmadki iyo islaaxinti intaas khasaaro umadu ay kaga badbaadayso laakiin dhagoolaynteenu imika bilownay ee aynu qofku masaajidkiisa iyo tusbixiisa iska haysto halkan iska wardiyo oo halkana lagu sinaysanaya halkana khamriga lagu cabaya halkana wax lagu dulmiyaya aanu mowqif ba kala hayn doorkiisii iyo wixii kala gudbanaa iyo aanu ka qaadanaynin tabartiisu waxay siinaysay waa ka ilaahay tilbaamo laa tusiibanna alladhiina dhalamuu minkum khaasa fitnadaasi kuma gaar aha dadkii sameeyey marka erayga fitna laba macno u bixinaya waa dembiga laftiisi oo macsiyadani haddaynu ka aamusno
kuwa sameeyo kaliya kuma egaanayso ehelkaagay soo gaaraysaa ubadkaagay soo gaaraysaa adiga laftaaday ku soo gaaraysaa haddaad isyaro geejiso marka dambe waxaad arkaysaa uun adigoo reerkii iyo rugtii iyo wixii oo dhan raacay takuunu maca alhaalikiin tahlik maca alhaalikiin oo qofka bani aadamkii waa daciif marka haddaad daadkaa iska moosi weyda adaga laftaadaaba la mid noqon doona oo iyaga xumaantii ku gooni noqon maysa way ku soo gaadhi siduu nebigu kaga warramay reer banu israa'iil waxay ku halaagsamaan buu yidhi qofku wuxuu arkayaa mid xumaan samaynayo oo maalinta hore u diidaya maalinta labaad buu u diidaya maalinta dambena wuxuu odhanayaa war dadkiiba xaggan u batae balaan la majaalista un tolkeed tol iyo kabtoona lagama dhex baxee malaynu kaga hadhna ma hayne uu la wadayaa marka dowladdiisuu la wadayaa xisbigiisuu la wadayaa tolkiisuu la wadayaa wadaadkiiba waa kaa wareeray wabiina hadalkeeda badda waayahay waxaa kaloo fitna lagu macneeyaa fitnada oo dembigii ahaa wixii ka dhashay oo ah maxay cuqubada iyo musiibada ka dhalata fitnada dadkii fitnada sameeyo qura kuma egaanaysa ee way idin wada gaaraysa taummu saalixa wa aalix balaayada ka timi macaasida iyo dunuubta la galay dalkiiyo dadka way wada gaaraysa laakiin cidda doorkeeda qaadata ilaahay baa ka badbaadinaya sidii qoladii asxaab sabt aynu ku soo aragnay qoladii xumaanta diiday ilaahay uga badbaadiyay subxaana wa tacaala wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi lard waxa ay tilmaamaysaa afar arrimood buu ilaahay halkan ku sheegayoo ummadda uu istidcaafka iyo dhibaataday gaaladu ku hayeen uu kaga saaray ama saddex arrimood aan idhaahno waa baqayseenoo gaalku idin bukaasayay oo dhibaatuu idinku hayay beriga ama ka joogteen saddex arrimood buu ilaahay idinku gurmaday faawaakum waayadakum binasri warazaqakum min aayibaat wuu idin soo dhoweeyey nasrigii gargaarkiisiina wuu idin siiyey arsaaqad wanaagsanoo xalaalana wuu idin siiyey marka waxaa jira xadaara alislaamiya laha muqawamaat horumarka ummaduhu afar arrimood bay ku taagan yihiin oo aayadda ka fahmayno si istidcaafka macnaa tamar daraysigii lagu samayn lahaa iyo awood daradii iyo cabsidii iyo dacfigii ay uga baxaan afarta arrimood waxa weeyaan diintii islaamka inay helaan dalna helaan dad wanaagsanna helaan dunyo xalaalina jirto afartaa hadday helaan horumarkoodu cerkaasuu maraya waana tuu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam awalan waa in diin la helaa haddaanay dadku diin haysanin wax kastay isu geeyaan wax tirsan maaha saa ilaahay uu tilmaamay dadka kuwa ugu dhibka badan bay noqonayaan aqoontooda iyo awooddooda intuba ummadunbay ku halaagayaanay ku baabiinayaan saynu maanta caalamka ku arkayno laakiin ummadaha waa inay helaan diin waa inay helaan oo diin oo dham iskuma jirtee diinta xaqa ah islaamka waa inay jirtaa raasamaalkii waa in la helaa waxa labaadoo laga maarmaana dadku in dad la helo dadkaasina dee dadkaa diinta raacaya ku urursanay yihiin dadku hadday qabyaalad ku ururaan maya ummadnimo ayaa lagu shaqeeya laakiin qabiil laguma shaqeeyo rasuulku sala allahu calayh wasalam qabiilkii intuu ka saaray iyo qoysaskii dadka ayaa qaran wuxuu dhisay ummadnimo ku salaysan ummad islaam oo abaabulay nebigu calayhi salaatu wasalaam umma islaamiya markaa labadaa arrimood ma ummadnimaa loo shaqaynaya mise qabiilnimaa loo shaqaynaya ummadnimadaa saxa oo xadaaradii iyo horumarku uu ku yimaadaa oo ummadnimadu waxay sheegaysaa dadka in miisaanka wanaaggun la saaro oon miisaanka reer hebel iyo miisaanka gobol iyo miisaanka kooxtoona la saarin marka dadkii wanaagsan ee diin ku wanaagsan un la ururiyo markaasay badanayaanay tayo yeelanayaan waana istuu nebigu sameeye calayhi salaatu wasalaam isagoon qolo u eegin buu haddana raggii maka ka yimi iyo raggii madiine jooga isku qoys buu ka dhigay waana isdhexleen arrinta saddexaad waxa weeye in dal jiro hadday dadku dee marti yihiin dee waxba ma qabsan karaan dowladda ma dhisin nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa uu ardiya helay saalixa libinaa'i dowla islaamiya oo uu madiine helay intii ka horreysay dowladda ma dhis markaa inaad laajitay meelaha marmaraya waxba ku hirgeli maayaan idan dalkaaga difaaciisa hagaajintiisa horumarkiisa dhisidiisa intuba waa laga maarmaan siduu rasuulku sameeyey sala allahu calayhi wasalam midda afraadna waxa weeye dunyo xalaala dunyo oo dhan lama doonee warazaqakum min aayibaat dunyo xalaal inay jirto oo waxaynu noqonaynaa saahidiina fi dunya la cani dunya adduunyada waynu ku dhex saahidaynaa inagoo ka shaqaynayna oo horumarka iyo masaalixda wax walba xaqiijinayna meel walba camirayna meel walba inagoo camirayna tacliinta caafimaadka beeraha maxaan ku idhaahdaa ilbaxnimada nooc walba inagoo ummadaha xagga hore kaga jirna
ayaynu haddana nahay dad adduunyada ku nool oo laakiin iyada aan u noolayn waynu ku noolahay waa ka faa'iideysanaynaa laakiin iyada uma noolin afarta arrimood marka la iswaafajiyo xadaaradda islaamiga iyo horumarka la helaya laakiin waxaynu arkaynaa dadku meelo kale ka raadinayaan xadaaradii horumarka oo gaalka faasida lagu dayanaya wana taa ilaahay ummadda ugu manna sheegtay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha watakhunuu rasuul watakhunuu laa takhunuu allaha warasuula watakhunuu amaanaatikum waantum taclamuun sidaad u khiyaamaynaysa alcaliim alkhabiir alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir miyaanad xishoonaynin ilaaha kula adig iyo qalbigaagaan ku kala dhex jiraan ogahay bal ka waran inaad tidhaahdo waan khiyaamaynayaa wax cajiiba weeye insaankaasi waxay sheegaysaa inaanu cilmi iyo caqli toona lahayn si kale haddii loo eego ashaddu anwaaci alkhiyaanaat khiyaanatu takaaliif asharciya khiyaanooyinka oo dhan marka la isku daro khiyaamo qaran soomaad maqal alkhiyaamatu alcudmaa waxay dowladuhu yidhaahdaan sida kale aynu inagu u adeegsanaynaa khiyaamada ugu weyni waa diinta ilaahay oo la khiyaameeyo marka diinta ilaahay khiyaamayseed ka run sheegi weydo ilaahay iyo rasuulka iyo ummaddiiba waad khiyaamaysay marka xil baa ku saaran ilaahayna uu inagu waajibiyey kaa in la ilaaliyo on la khiyaamaynin diinta haddaad diinta khiyaamayso dadkii baad khiyaamaysay dalkii baad khiyaamaysay ilaahay baad khiyaamaysay waxba maad reebin marka alkhiyaama alcudma oo dowladuhu ay u yaqaanaan marka dowladda un la khiyaameeyo waxay iyagu u yaqaanaan kolka qaanuunkeeda la jabiyo innagana halkii qaanuunka waxaa inoogu jira qur'aanka marka in qur'aanka la khiyaameeyaa oo ammaanadii ku saarayd aad khiyaamaysood ka been sheegto waxay sheegaysaa khiyaamada weyn ee qofku uu dilka ku mutaysto dee murtad baa la yidhaha wa antum taclamuuna waxay sheegaysaa arrin kale oo ah inaad ceebtaadu sii badanayso qofku hadduu jaahil yahay dee waaba loo cudur daaraaye adigoo aqoon leh oo badheerhaya واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم دقني كلا إلهي وسوعلي البلاء الحسن بين هالك وراك صامر هل كان إلهي وحط الماما إن إلا فتنة جراه فتنة الحرمان والنقمة وفتنة الإعطاء والنعمة فتنة الحرمان والنقمة قف كيو لا فرمريو بلايا كل علي تاقف وكل بين وحو كفتنه يسين وي صبر بانay uga baahantay dadka intooda badan inuu ku sabraa faqriga ku sabraa cudurku ku sabraa oo dibka cadawga iskaga sabraa laakiin fitnada cajiibki waxa way fitnatu al-i'taa'i wan-ni'ma markuu ilaahay cadiyo ku siiyo ku barwaaqeeyo ku baraareeyo dadka yar baa sabirta oo maalku helay madaxtinimadu helay muruqiya caafimaadku helay ubadku helay dadka yar baa ku sabirta inta badan ma sabri karaan markaasuu barbaraadnayo boodbood iyo kala badasho iyo xumaan inuu dhan walba u rido ayuu markaasuu badinayaa qofku marka fitnada halkan ka soo baxaysa wuxuu ilaahay ku siiyay iska ilaali baa ilaahay u leeyahay subxaanahu wa tacaala wallahu aclam